wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle Isgoowe ku-xigeenkiisa Maxamed Bashiir Qaasim Daqare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle oo maalmahan howlo shaqo u jooga degmada Buulaburte ee gobolkan Hiiraan ayaa maanta kormeer indhayn ku tagay qaar ka mid ah beeraha degmada Buulaburte waxaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha midowga iskaashatooyinka beeraha ee degmada Buulaburte Jaylaani Jiir Miisaad iyo gudoomiyaha iskaashatada Raqayle Sanay Cabdulle Xaale anagoo ku hadlaayo magaca midowga iskaashatooyinka degmada Buulaburte waxaan halkaan ku soo dhaweynaa ufuudan kala gidisan oo wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabelle uu hogaamina yaala wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo maamulka degmada agaasimaha waxaad ku soo dhawaataan iskaashatadan waxay kamid tahay iskaashatooyinka midowgooda kamid tahay waxa la yiraahdaa iskaashatada kala xiyaaliyada marka ku soo dhawaado yaala wasiir waxa koow dawladii Maxamed Siyaad ay saartay bamba 300 waa taa la hadda ayadoo halaysan waxa noogu soo xigtay bamba 200 waa halaysan tahay waxa noogu soo xigtay 150 bamba ah heerkaas inta soo maray bamba konton waa inayna ku filnayn aniga waa dareemayna laakiin waxaan ujeedkayna waxa ahay hal tumiyo lagu keena hadaa dib u celiso ummadda horumarkeeda ma ka shaqeynaysid waad baabi'inay Cali Xaaji Cabdulle wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayaa ka warbixiyay socdaalka ay maanta ku tageen qaar ka mid ah beeraha degmada Buulaburte maanta waa maalin farxad iyo taariikh leh lama ilaabaana waxaan joognaa beerihii kala xiyaalay gacanteena waxaan ku haynaa ujeedin khayr qasab ayaan gacanta ku haynaa babaay ayaan gacanta ku wada haynaa intaas waxay u daliil tahay maasha Allah alxamdulillah meesha aan joogno inay nabad ay tahay ayaad u jeedin annagoo intaan mas'uuliin ah waxaan iskaga soo kacnay meeshaan dalxiis aan dhihi karaa ammaankan waa fiican yahay uu fiican yahay maanta waxaan soo booqanay iskaashatada Raqayle kanaalkan waa arkaynaa wuxuu u baahan yahay soo qudhiisa dayactir u baahan yahay waa soo aragnay xaqana soo marnay inta motorkana inuu motor la'aan ay haysanay horna waa lagu sheegay haddana indhahayna ku arkoynaa insha Allah annagana waxaan dadaalnaa wixii aan kaalintayna oo ka qaadan karno ka gaabsameeyno dadka waa dadkeeni waxa noo keenaba in ay dhibaatadoodana dhibayso waay dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayaa shir gudoomiye kulan ay iskugu yimaadeen maamulka degmada odayaasha dhaqanka wakiilada hay'adaha deeq bixiyaasha ee ku sugan degmada Buulaburte waxa ugu horeyn shirkan faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdicasiis Duuraw siyaadada shirkan wuxuu ku saabsan yahay in halkan bulshada qaybaheeda kala duwan sida NGO-yada sida iskaashatooyinka sida waxgaradka degmada maamulka iyo saraakiisha kala duwan ee amniga ayaan ka koobanahay mudane wasiir ku soo dhawaada waxaad noo sheegi doontaan hawshiinii iyo waxa u timaadeen iyo waxaad noo wadaan sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Buulaburte annaga marka waxaan qabnaa raggaas walaalahayna oo mas'uuliyiinta laga soo dhigay oo sida ninka Sheekh Jaylaani runtii waa culumadii magaalada ma diidanin maanta inuu mas'uul noo noqdo ragga kale oo ku xiga waa raggii aan ku dhaaranayni haddana waxa la rabaa oo reer Hiiraan ama reer Buulaburte mar walba naga hadlaysan adduunka waxa laga helaa wax la yiraahdo aqoon kororsi seminaaro annagu waxa ma soo gaaraan waxa laga yaabaa aniga hadii maanta maamulka la igu soo daro Cabdi Duuraw in la fadhiisto oo ila Cabdi Duuraw adiga nima tahay anina nimaana dadka hadda xoogaha dhaliilane lagama waa bulsho laakiin anagu dhaliilmaba u arko waayo degmada Buulaburte waxay xiran tahay 6 sano 6daas sano meel wax ka soo galaan hay'adaha ka jiro ilaahay ka sokow hay'adaha ka jiro hay'aduhu marka inaan eedeyno iyo xoogaha meesha ma baygulo jirtaba ugu dambeyn waxa si wada jira shirka u soo xiray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle Isgoowe iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Bashiir Qaasim Daqare sidii ay iskula shaqeyn lahaayeen maamulka degmada hay'adihii ka howlgalay iyo iskaashatooyinkii
siday u wada shaqayn lahaayeen odayaasha dhaqankuna ay markhaati ku noqon lahaayeen dadka loo wada shaqaynaa waa shacabka Buuloburte meesha dhibaato kale ma taal annaga beerayaan wada ahaan jirnay madaan aqaan jirnay yirsinaa jiray yirsinka ugu muhiimsanaa sida lagu kala biyahaas loo qaybsan lahaaya oo xil u saarnaay nidaamkii lee waaye shirkii maanta halkan iskugu nimidna waxaan jeclahay in intaas oo noo soo ekaado oo aan shirkii noo soo xiro waxaan jeclaa doonaa insha Allah kii ugu dambeeyay inuu noqonin oo kii ugu horeeyay oo noqdo oo anagana mar walba aan soo noqon doono isla xisaabtan dhabna ay ka dhici doonto meeshaan degmadana mar walba ka warwahay doono ilaahay idinka sidan ka imaanay Absalan Maxamed Ibrahim Absalan Habis Somali News Buuloburte